iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay soo baxayso baaqa iyo codsiga xadhigga wariye cabdimaalig muuse coldoon oo muddo 3 toddobaad ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa maalintii shalay galabnimadii goob fagaaraha iskugu yimaadeen cuqaasha waxgaradka iyo qaar ka mid ah abwaanada gobolka Togdheer waxaanay baaq iyo cod soo direen xukuumadda Soomaaliland inay cafiso wariye coldoon xorriyadiisana dib ugu soo celiso waana kuwan iyagoo arrinkaasi ka hadlaya waxaan xukuumadda ka codsanaynaa in la sii daayo cabdimaalig muuse coldoon xukuumadda waxaanu gaarsiinaynaa wuxuu ahaa cabdimaalig nin samafala ah waxaa isxiga gurigayga iyo gurigiisa waxaanu ku tagaa habeenkii gurigayga hortiisa tiro badan oo dada oo maqta ah oo qubana ah oo agoona oo curyaama oo indhoolaa oo naafa oo soo caydhoobay oo meel walba ka yimi oo hor fadhiya gurigayga iyo gurigiisa hortiisa waxay eegayaan iyagu in la xidhayba ma oge waxay doonayaan isaga waxay leeyihiin naf baan haysa cabdimaalig waxaa naga duuba ninkaa cabdimaalig muuse coldoon la yidhaahdo in la cafiyo oo ay dawladdu cafiyo sidaasaanu codsanaynaa anigu waxaan ka imi oo ka soo galay magaalada meesha la yidhaahdo Balli Caraale waa yeelkeeda ayaan ka mid ahay ama guddoomiyaha guddida Balli Caraale ayaan ahay marar fara badan ayuu noo yimi dad fara badan oo liita oo halkaa waxa weeye ku oomay oo ku raashin waayey oo xoolii ay kaga baxeen taakula fiican iyo warbixin fiican buu ka geeyey sidaa darteed baan u codsanaynaa in maaragtay ay dawladdu cafido waxaan xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa haddii aanu nahay dadka yacni ninkaa siduu wuxu taageero ama ummadda wuxuu ku qabto og ee u dhuun daloola dawladda waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xukuumadda iyagoo mahadsan iyagoo dawladdayeediya annagoo aad iyo aad dawladdayeeda aan u taraabsannahay inay sii daayaan annagoo ah waxgaradkii gobolka Togdheer oo aan bari iyo galbeed kala lahayn oo isku duuban inaannu madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo si xushmad iyo sharaf leh uga codsanno inuu xorriyadiisu u soo celiyo cabdimaalig muuse coldoon cabdimaalig muuse coldoon qiimihiisa waxaad ka garan kartaa gobolkii Togdheer shacabkii ku noolaa cuqaal iyo maxaan idhaahdaa dhallinyaro iyo waxgarad maanta looma kala hadhin bari iyo galbeed waa loo dhan yahay mudane madaxweyne waxaannu kaa codsanaynaa inaad maxaan idhaahdaa codsiga iyagaa dhammayska tiran ee bulshada bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfuri ay u dhammaystiran tahay madaxweyne waxaannu kaa codsanaynaa inaad tixgeliso waxaannu madaxweyne kaa codsanaynaa se ugu dhaqsaa badan cabdimaalig muuse coldoon in xorriyaddiisii loo soo daayiyo waxaannu madaxweyne maanta si sharaf leh milga leh maamuus leh magac leh kaaga codsanaynaa oo idinka codsanaynaa dhammaan xukuumad ahaan inna loo cafiyo cabdimaalig sheekh muuse coldoon cabdimaalig waxaa u hadlaysa intii uu caawin jiray intii uu gurman jiray intii uu gargaari jiray wuxuu ahaa xubinka ugu firfircoon ee caawiya dadka inta goolmoon inta baahan inta ciishoon inta curyaanka ah iyo haddii ay beedmayo inta laxadkoodu kala dhantaalan yahayba gabagabadii madashaasi waxaa hadalka soo afmeeray caaqil Siciid Warsame oo ka mid ah salaadiinta iyo odayaal dhaqameedka Soomaaliland codsigayagu wuxuu ku wajahan yahay oo aan baarayna oo si naxariis leh ugu wajahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaanu sheegaynaa oo sababaynaynaa xogaha nagu kaliifay ninka cabdimaalig muuse coldoon xadhigiisa iyaanu doonaynaa horta marka hore madaxweynuhu noo saamaxo sababtuna waxaa weeye anigu marka hore caaqil baan ahay marka xiga waxaan ku hadlayaa ilaa 50 tuulo afkoodii waxaan soo gudbinayaa dareenkoodii intaaba dadkaygii baa jooga aniga maatadayda waa ka mid ku wuxuu geyn jiray waxaannu furaynaa bariga Burco magaalada raggii dee joogay wuu ka warramaya laakiin anigu miyiga waan goobjoog ka ahaa baan ka warramaya bariga Burco ilaa 50 tuulo oo ka dhaxaysa 3 gobol oo Togdheer kow Saraar iyo Sanaag intaba ka dhaxaysa ayuu ninkaasi samafal gaarsiin jiray
baaqan ay dirayaan waxgaradka gobolka togdheer ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli usbuucii saddexaad uu wariye cabdimaalig coldoon ku xidhan yahay xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa iyadoo aanay wax go'aana weli maxkamaddu ka gaadhin. maxamed xasan diiriye maxamed jookar wararka warbaahinta kala duwan ee gobolka togdheer burco.